labadan curyaane walaalaha waxay ku nool yihiin tuulada alcadda ee waqooyiga degmada garadiga galbeedka gobolka Sanaag mana haystaan adeegyada aasaasiga sida caafimaadka waxbarashada qowtal daruuriga iyo baaskiilka la raaco waxayna ummadda Soomaalida meel kasta ay dunida daclada ka joogto ay ka codsanayaan inay soo caawiyaan waxayna ka dhawaajiyeen abaartii 2016-2017 xoolahoodii xaalufisay waxayna ka dhawaajiyeen aabahoodii hooyadii inay ka ganacsadaan xaabada waxayna muddooyinka roobabka xooggan ka daanay haysan meelo ay ka galaan waxayna sidoo kale sheegeen muddooyinkii la soo dhaafay roobabka xooggan ka deena daad ku qaatayba wixii tabarucaad iyo waxtarba u diraya hooyadooda lagu magacaabo hodan aadan cilmi oo sida lambarka xoolahoodina way baxaan waana dhamaadeen markii dambena aabahay hooyaday anagoo soo gurgulanayno kaana keeneen marba sida tuurta ugu sida marra anu gurgulanay calaacalaha iyo curyaamadeeda wataan arkaan madaxweynaha iyo shacabka iyo dawladda waxa ka codsanayna inay caawiyaan roobku halkaas noogu yimaada gaari kan ku kacro iyo waxaan ku soconaba ee dawladda ka rabnaa suuliga ma gaari karo waa meel fog ilaa 2 mitir bay jirtaa meeshaan suuligu waxaan ku gaarnaa asaan u socono mar walba sina sanayno ya ladiif yaan ku gaarnaa madaxweynaha iyo dawladda waxa ka codsanayna inay degdegna caawiyaan waxaan cuno iyo waxaan huwanaba naga musabix cabdi ayaan ka codsanaynaa iyo ummadda islaamka nimanka curyaamaha nahay inaan caawisaan xoolaha barta naga tagamaan fadhinaa waa naga aragtaan buulkaasaan joognaa yare cawlan daartana ma lihiin nin baan ugu caawiyay yiri halkaa fadhiya gurigina yar gala daarta waa soo xunaan aragtaan inta halkaasaan ka fadhinaa qura meel kalena wax nooga maqna dadna noloba jiro oo nologa soo shaqeeyo hooyadii aabay xaabada inoo soo guraaniyo waxay noo soo helaan baan abka ku qudanaa qadif bacdaysan wadana meel kale uma dhaqaaqno halkaasaan fanayna caawisa baan rabnaa wassalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatuh markii horena dad xoola dhaqataa ayaanu ahayn xoolihiina abaari bay baxeen haday gaadiid ahayd iyo haday godol ahayd iyo haday ari ahaydba way baxeen ka bacdina inamada tuurtaan ku soo guray waxaan ku soo qaadnay hadii almee waana nasinay muslim deen la caawiyo ama dabeer yar nasiya markii dambe ama hadii almee nala soo taakuleeya way jireen oo iska reer miyiga oo iyagu baan waxba nagu dhaamin oo meel nala joogay oo nala caydoobay ka bacdina halkanaanu nimi buulkaasana loo buulay daartana waa nala ku caqiibayo wax la yiri warqolqolkeedana jooga geedkaana noo biyeey hadii la idmaayo idinkuna cidlada kaga dhuunta hooy aanu leenahay maaha hooyga iyagu waa waxa noo dhisan inamada hadii la idmaayo daadku waa sigaa daadkaasaga oo hadii almay roobka way ku sigtaan meelaan saaro male gaari ay ka koraan male kursi ay ka koraan male hooy ay kaga dhuntaan male meel lagaga xeero oo hadii la idmaayo ka adag male hadii la idmaayo waxaan ka codsanayaa islaamka mid dal jira iyo mid dibad jiraba ilaa madaxweynaha waxaan ka codsanayaa wixii ugu tari karaya inay ku taraan way arkaan inamadu waa kuwa dal looma jiro dibad looma jiro adduunyo ma leho xoog ma leho dulku guri kari maayo gaadiid ma leho gawaadhi ma leho gogol ma leho waxay huwadaan ma leho waxay anfacdaan ma leho waxay hadii la dusha ka gashadaan ma leho adiga arkay walaalayaal waxaan idinka codsanayaa inaa wixii ay ugu tari kartaan igu tartaan haday gawaadhi tahay haday waxtar tahay haday gogol tahay haday hud tahay haday huwasho tahay haday hoy tahay waxaan ka uga baahanahay ummadan islaamka dhamaanteed meel ay joogtoba ninkii wax ugu dhaama ila qaar baa waxba ugu dhaamin oo ila joogay wixii wax ugu dhaama inay wax ugu taraan oo inamada ay ugu caawiyaan abaara madow ayaa qaaday waxaan ku qaadi jiray dabeero markii hore markii xoolaha ay ka baxaysan halkan baan ku keenay yaan ku keenay dabeeri hadeerna ma ogtay guri ma laha hooy loo dhimo ma laha oo buul yar bis ka jira ina ku aragteen baa laga yaabaa marka baahi badan xitaa gawaadhi ay ku socdaan ma laha xooluhuna wax yar baa halo ama raashin baa xoogaa dhoof ma daboolaan ma ogtay may daboolaan marka de waxaan u baahanahay waxay u baahan yihiin gawaadhi ay ku socdaan iyo dooyino ma ogtay caawin bay u baahan yihiin hay'adaha baan iyo dadka islaamka aan ku codsanaynaa markaasaana waxa ilaahay kan ugu mahadnaqaa wanaagsan alxamdulillaah rabbil caalamiin weeyaan waan ku mahadnaqay ciidda iyo dalkayaga aan ku mahadnaqaynaa waxaan ugu mahadnaqaynaa wixii ilaahay farsamada u keenay taabiyadana dadka islaamka waxaad ku codsanaysaa dadka islaamka waxaan ku codsanaysaa in la caawiyo oo la ogaado
ونلا وقاعد بأنه كعب سنة كإسلام كا يعريها ماذا بس وران محمد ران تلفزيون عالمي اريال تي في دقمة قرأت